xogo dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan xiisad dagaal oo ka taagan duleedka degmada Baydhabo ee gobolka Bay iyadoo xogaha ay tilmaamayaan in ciidamo fara badan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay halkaasi ay gaareen ciidamadani oo la sheegay xalay ilaa iyo saakay in ay ka goosteen ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku sugnaa gudaha magaalada Baydhabo ee maamulkaasi ciidankan ayaana waxa ay ku biireen ciidamo kale oo la baxay badbaadada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo uu hogaaminayo sargaal lagu magacaabo Cabdiraxmaan Niishow ka oo horay ula dagaalamay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaana kula dagaalamay gudaha magaalada Baydhabo ee maamulkaasi waxaayna xoguhu ay tilmaamayaan in ciidamadani oo wata gaadiidka dagaalka hubka noocyadiisa kala duwan iyo sidoo kale tasaanada dhameystiran oo ciidan ay wadaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan iyadoona laga cabsi qabo in gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay uu ka dhaco dagaal culus oo u dhaxeeya maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamadani la baxay badbaado qaran ee maamulkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaana ka dhanaha hogaamiyaha maamulkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxaayna sidoo kale dhaqdhaqaaqyo ka socdaan degmada Burhakaba ee gobolka Bay iyadoona halkaasi ay gaarayaan ciidamo kale oo maamulka Koonfur Galbeed horay uga tirsanaa waxaana ciidamadani iyo siyaasiyiin kale oo la sheegay inay ka soo horjeedaan muddo dhaafka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ay wadaan abaabulkii ugu dambeeyay iyadoona shacabka ku dhaqan gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ay soo wajahday cabsi aad u xooggan oo la xiriirta in dagaal uu ka dhaco mar kale gudaha magaalada Baydhabo isla markaana ay ku dagaalamaan ciidamadani la baxay badbaadada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale ciidanka uu majaraha u hayo hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen